السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada cashirkeenii labaad ama projectgeennii goday madrasa ayaan ku baranaynay ASP.NET Core 3.0 cashirkeenii u horreeyay waan soo dhamaynay ilaa 1 saac iyo 24 daqiiqo ayuu ahaa runtii cashirkaasi wuxuu ahaa cashirkii aan ugu magac daray project setup waana dhamaynay statuskiisu waa done cashirkaasi cashir aad u muhiim ah oo aan kaga soo hadalay waxyaabo aad u fara badan qofka cusub ee raba inuu barto sida loo sameeyo website asoo isticmaalayo framework la yiraahdo ASP.NET Core versionkiisa 3 aad ayuu muhiim u yahay waxaanu ka hadalay projectiga sida zero looga soo bilaabo sida loogu daro folderada u baahan tahay sida loogu daro database connection adoo isticmaalaya entity framework ka bacdina sameynaya database migration adoo maxaan ku raahdaay isticmaalaya models sida loo sameeyo models sida starter file loo update gareeyo a lot of things www root sida loogu daro waxyaabahaas oo dhan baan ka soo hadalay marka fadlan projectga dib ha loogu noqdo cashirkan waa kii labaad saad u jeedaanba cashirkii oo dhan projectii oo dhan waan jajabiyey manaha waxaan kusoo koobay 18 qodob 18 qodob saddexda u horeysa caawa hal cashir ayaan ka sameynaynaa inta kalena waanu inta cagaarka cashir gooni noqon doonaa inta buluuga cashir gooni inta yelowga ama brown hurdiga noqonaysa cashir gooni ruuxi u baahan source code-ka fadlan ha tago our GitHub ayaanu leenahay account full stack coder camp halkaas ayaad ka download garaysan kartaa projectyadan sameeyno dhan insha Allah taala marka dhalinyarada waxay ka caawdeen waqtiga oo dheer dartiis dubitaanka in la yareeyo casharada oo 12 daqiiqo laga dhigo marka insha Allah waan soo koobinaa casharadan aad ayaan u soo koobinaa wixii sharaxaada galaaska ayaynu ku faahfaahin doonaa biinillah so aan bilowno projectiga ayaan furaya midka u horeeya wuxuu yiri add model validations add client side library and modify your layout so let's do that so projectiga fur kulli meesha ku jooga garanaysid ka bacdi waxa uu horeeya modelka so modelka tag saddexdan class ayaan haysanaa teacher student and subject marka mid kasta validation ayaan ku darinaa validation maxaa laga wadaa let me show you waxa laga wado projectiga oo dhameystiran waa kan so haddii aan arday tago oo aan damcaynan arday ku daro projectiga waa asagoo full oo dhameystiran marka fadlan haddii aadan weli maadan gaarin meeshan so ha ka walwal insha Allah taala by the time aad course-ga dhameyso website sidan u qurux badan ayaad sameyn doontaa insha Allah taala oo free oo lacag la'aan insha Allah taala let's go ahead and check that out so sala waxa riira lahaada so haddii aan tago tusaalahan add student dan ku dhufto oo aan create ana waxa buuxinin first name iyo last name waxa aan sameyn hadaan create dhahdo look what happened hold on let me go back maybe let me go to teachers afwan or subject I think I'm gonna fix the error so create hadaan dhaho see that erroradaas iya subject field is required description is required waxyaabahaas oo dhan manaha cad ee soo baxaya ee reerka ah ama casaanka ah waxa uu taqaanaan ayaa la dhahaa validation manaha waa inuu ku qasbo ruuxa formka buuxinaya inuu buuxiyo sidaas daraadeed waa inaan validation ku darro so aan ka bilowno ardayda ardaydii waan ku sii dardaray si aan waqti u save gareeyo marka fadlan waxaad sameynaysaan idinku cashirkeenii hore student first name last name ayuu ahaa marka waxaad sameynaysaan student ID korkiisa right here ayaa waxaad ku daraysaa calaamadan bracket la yiraahdo key oo keyda ay capital tahay key ayaad ku daraysaa first time markaad ku dartid intaas reer ayuu ka noqonayaa sababtoo ama haysatid this using statement so let me delete it waan ku daray sidan uu ka noqonayaa casaankaas uu ka noqonayaa sababtoo ah in order this to work waxa u baahan tahay wax la dhaho validation attributes ama data annotation ma u baahan tahay DLL ama maxaan library Microsoft ayaa already iska leh soo ku dhufanaysaa dusheeda saas oo dul tagaysa ama highlight ku sameynaysaa calaamadan yellow ku dhufanaysaa ta horeysa using statement system.component.model.data annotation ku dhufanaysaa korkaas koray ku soo fadhiisanaysaa haddaad doonto gacanta ku qoran kartaa it's up to you markaad sameysid calaamadii way ku hagaagaysaa so student ID key ayaa dhahaysaa keygan waxa weeye database-ka markii aan arday cusub ku darayno sida hadda midkii halkan ahaa markaan ku darayno wax cusub
as you can see ID ma siinayno ID-ga database-ka ayaa automatically soo generate garanaysa ama samaynayso. So that key means hey database adigu wixii ID ku saabsan samayntiisa adaa qaabilsan waayo. Okay, first name korkiisa laba xabaad ku dhigaysaa ku required iyo hoostiisa ku kaloo la yidhaahdo max length. Alaabtani sida loo sameeyo waa simple. Mid ka horeeya aan tusayaa hadayda bracket required waad qoraysaa isagaa soo baxay fii required haddana hoos baa uga baxaysaa bracket kale max markaa qorto isagaa soo baxay max length haddana open and maxaan ku rahdaa bracket ama qawseyn then dhexdiisa waxaad ku dhigaysaa number waxa 20 oo kale for example muxuu yahay waxani waxaa laga wadaa first name-ka xarfaha la gelinayo inuu intaa ka badan noqdo lama ogolo. So tankii horaan ku celinayaa ii joogtay. Okay, so first name waa 20 max required, last name 20 max required, gender isagu waa 6 maxigeeda laakiin waa required, age isagu wixii number ah wixii number ku saabsan max length ma laho wixii string basa max length leh. So age-ka isagu waa required, teacher ID labadan hoose idinkuma jiraan waa inaad gelisaan labadana sharaxaad u baahan. Marka prop sidii aan u sameeyno waad garanaysaan cashirkani hore haddii aan tusaale prop dado tab dhahdo wuu kuu soo baxayaa. So then buuxi. So prop oo publica integer calaamadaas question mark marka integer dhahdo kuwa hore soo baratay integerka calaamadaas ma lahayn. Calaamadda waxaa weeye nullable macnaha waxa waaye ardaygu macalinna wuu lahaan karaa oo waa loo assign garayn karaa macalin la'aanna waa la registerin karaa. So tusaale arday markuu cusub yahay aad register garayso intaad macalin u raadinaysid arday wuxuu noqonayaa ay teacher ID-giisa uu empty yahay ama ever. So calaamadaas waxaa weeye hey it's nullable ever buu noqon karaa mar baan ka hadlaynaa insha allahu tacaala. So teacher ID get set public virtual teacher ID teacher-ka kani waa moralkii teacher ahaa. What this means is haddii ardayga la diiwaan geliyo oo maxaan ku rahdaayay la qoro macalinka u dhigaya macluumaadkiisa in aan ardayga page-kiisa ka arkaan raba maxaan ka wadaa arrintaas. So let me as student aan tago as you can see ardaygan hadda anaa qoray Muna Cabdi teacher name-keeda waa Faadumo. Why haddaan teachers tago Faadumo waatan Faadumo macalin waa female okaas emailkeeda ardayda u dhigayso waa hal haddaan studentiga tago Faadumo waatan. So macalinkan xaguu ku yimid halkan wuxuu ku yimid moralka ardayga student moral ayaa wuxuu watay teacher ID-gii oo Faadumo ID-geeda salahan waa 20 ama whatever iyo markaas macluumaadkii Faadumona I can access from teacher object. Sidoo kale subject-iga uu ardayga dhiganhayo iyo subject-iga macluumaadkeeda. This is called markii la joogo database waxaa la dhahaa foreign key relationship. Markii moralkan la joogo ama C# waxaa la dhahaa property navigation ama navigation property baa la dhahaa. So you can navigate from one class to another class. Although hal class ku dhex jira tusaalahan student ayaad class kale oo teacher macluumaadkiisa ku arki kartaa adoo isticmaalay ID-ga object-igaas class ku jirta. So that information intaa ku dara intaa markaa samaysaan save gareeya ka bacdi waxaad furaysaan subject iyadana sidoo kale ID bay u baahan tahay. Subject name waa required waa 25 character long. Description-ku waa 200 character long waa required. Cost-igu waa required isagana. Duration-ku waa required 50 max-geedu. Number of students waa required. Create date-ka la sameeyey waxaan ku daray intan equal baan ku daray intaas idima lahayn idinku equal date time now macnaha waxaa waaye marka aan samaynayno subject cusub we don't wanna qofka samaynaya subjectiga managerka ah in uu markastaba date-ka uu samaynayo maanta uu sameeyey inuu maanta uu ku qoro oo baahan systemku waa inuu smart noqdo oo maalinta la sameeyey saacadda la sameeyey waa inuu garan karo. So haddii aan hadda add subject dhaho wuxuu buuxinayaa macluumaadka laakiin date ka maartay laakiin systemka automatically wuxuu ka dhigayaa date-ka la sameeyey now haddan marka ayada la sameynayo taariikhda ay tahay uu ka dhigayaa. So waa automatic. And then here is interesting this another navigation property kanaad ku daraysaa idinkan ma lahdin soo ku daraysaan kan waxaa weeye subject kastaay waxay leedahay arday select ku ogaatay ardayda haddaan tago waa kan subject ID subject marka arday kasta subject ID baa ku jira. That means haddii subject-iga la dhaho math
ID-geedu uu yahay tusaale ahaan 1 uu yahay ilaa 10 arday baa mathka dhigan karto ID-gaas 1 isticmaali karta. So that means list of student arday fara badan ayaa subject-ga dhigto. That means right here in the subject waxaan leeyahay list of student ardada ku dhigata intay tahayba awan inaan arko oo ka access gareeyaan rabaa. saas waxaan u leeyahay halkan fiiri in the subject iska hadhowto markaad qoraysid number of student hadda waa 0 math wax dhigta male. So let me go ahead and go to student. Let me add ardaygan and let me go to math and assign the student. Now ardaygan classkiisu waa math wuu dhigtaa. Haddaan subject-iga tago look one arday baa dhigto. Sida one arday baa dhigto. Ardaygana math siduu ku garanayaa class ku dhigto siduu ku garanaya because navigation property in the student waxaan ku daray subject. So subject-iga mathka macluumaadkeedii magaceeda description halkan soo galiya. Subject-iguna list of student baa soo galay dhinaceeda. So waxaa la dhahaa foreign key primary key relationship. So intaas qora waxaan oo hadhay maamulanaya teachers. So teacher kan sidoo kale keygiisi teacher ID first name waa intii iyadahay student ku soo marteen waa same sharaxaad u baahan waan boobsiinayna insha Allah gender marka adigu post grade videoga oo ku dardarso email kana interested in emailku asagu wuxuu leeyahay data tab gooni ah. So data tab bracket ba furaysa data tab dot parenthesis baan ka wada cafwan dot email address kana waa data tab dot phone number ka marka hadaan ku dhufto data tab data dan waxa soo baxay password email date marka waxay ku siinaysaa extra validation bay ku siinaysaa oo haddii tusaale ahaan emailka oo kale aad @sign ka tagto wuxuu ku leeyahay hey email @sign waa inuu wato camal. Then dhinaca teacheradu teacher kasta ay haddaad ku noqotay ardaydii teacher ID buu haystaa. That means list of macallin kasta wuxuu lahaanayaa arday badan arday kastana hal macallin buu lahaanayaa. So save garee moralkii wuu kaa dhammaaday. That's pretty much it. So iska xidh kuwan waad xidhaysaa. Step ku xiga waxaa weeye mar haddaad moralkii ku dartay waa in aad samaysid maxaa la dhihi jiray migration. So go to tools and then NuGet package manager console and then halkan uu iga galay anigu halkan waxaad ku qoraysaa add dash migration and then u bixi magac tusaale ahaan added model validation oo kale ka dhig space malaya hit enter dheh marka enter dhahdid waxaa kuu soo baxaya kana kuu soo baxaya inaad waxaan ku dartay waa kuu soo baxaya. Of course date-ka uu ka duwanaanaya wax kale meeshaas wax magac kale ku noqonaya. Then after you do that all you need to do is update dash database and then you hit enter way rangareysmaysaa and meesha u hooseysa done ayaad arki doontaa done. So intaa markaa samaysid then let's do the step 2 waan ku daray validation key client side library baa inoo haray and then modify layout. cashirkeenu 12 daqiiqo ayuu gaadhay halka ayaan ku joojinayaa insha Allah taala waxaan bilaabeynaa cashirkii labaad. jazakumullahu khayr. Assalaamu calaykum.